waa hagaag daawadayaal halka aad nagala socotaan waa barteena Shirwa Cumar oo aad noogu barateen inaan idinku soo gudbino wararka falanqeynta arrimaha caalamka iyo barnaamijyada hadba wixii soo kordho xiisadaha ka taagan bariga dhexe. Warbixinta maanta waxaan ku qaadan doonaa barnaamijkeena falanqeynta qodobada waxaa ka mid ah maxay ka dhigan tahay heshiiska ay gaareen Suuriya iyo Israa'iil ee xabad joojinta ah. Rajo intee leeg ayaa laga qabaa xabad joojinta Gaza? Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku faaqideyn doonaa barnaamijkeena. waxaa dhinacayga fadhiya albani soo dhawow sidaad ka warhaysid warbaahinta caalamka iyo waxyaabihii ay maanta ka qoreen warbixinada caalamka waxay qoreen iyo warbixinadii ugu dambeeyay arrimaha bariga dhexe. waad mahadsan tahay waa ku dhowahay Shirwac sidaas sheegtay. haddii aan ku hormarno qorshaha Gaza waxaa la leeyahay waxaa rajo laga qabaa in xabad joojin ay ka dhacdo iyadoo midaasi ku cadaadinayo Mareykanka. laakiin markaanu fiirino gudaha Israa'iil warbaahinada ka soo baxaya waxay sheegayaan in arrinta Trump ay la yaab yihiin oo waa lagu ka aragti duwan yahay dagaalka ka socda Gaza. qaar waxay doonayaan Israa'iil ka mid ah in dagaalku uu sii socdo, xasuuqa lagu wado Falastiin la sii wado. qaarna waxay doonayaan in la soo gabagabeeyo oo la soo afjaro. marka kuwa ka soo horjeeda ayaa waxay yiraahdeen anagoo soo xiganayna warbaahinta Israa'iil waxay leeyihiin Trump haddii uu ku guuleystay inuu dagaalka joojiyo Iran iyo Israa'iil markaan wuxuu rabaa in magaciisa in oo caalamka laga hadlayo inuu sii wado midaasi amaantaas ayuu raadinaya ay leeyihiin. laakiin markaan soo koobno muhiimadu xabad joojinta lagu dhawaaqi doonaa sida Trump uu sheegay toddobaadka soo socda gudihiisa ayuu sheegay haddii wax isbedelin midda markaa rajo weyn ayaa laga qabaa caalamka oo idinna runtii midaas way ku kalsoon yihiin maxaa yeelay Trump ayaa joojin karaa sida siyaasiyiinta waaweyn Carbeed ay qabaan. xitaa waxay sheegeen dagaalka Gaza ka socda waxaa awooda inuu Trump joojiyo Netanyahu in lagu cadaadiyo ayaa suurtagal ah. waa tahay qodobka kale maxay ka dhigan tahay heshiiska Israa'iil iyo Suuriya? Suuriya iyo Israa'iil waxaan ogsoonahay in khilaaf xooggan ay ka dhaxeeyay dhanka gobolkana Israa'iilna u soo xanqal taagaysay ay doonaysay qodobka labaad haddii aanu fiirino inuu yahay mid ay doonaysay inay dhulka ku ballaarsato iyadoo Israa'iisha weyn ay ka hirgelinayso bariga dhexe. ha yeeshee laakiin sida u yimid Axmed al-Sharac oo ah hogaamiyaha Suuriya waa hogaamiyaha ugu caqli badnaa ee soo mara wadamada Carbeed runtiina aad ayaa loo amaanaya. wuxuu isku dayay khilaafaad hareeyay gudaha inuu xaliyo in badan ayuu xaliyay boqolkiiba 70 ayuu xaliyay. dhanka dibaddana caqabadaha ka haystay wuu xaliyay. caqabada ugu weyn oo ay ahayd Israa'iil oo in badan weerar xooggan ka geysanaysa waxaan ogsoonahay Israa'iil sida uu la wareegay Axmed al-Sharac Suuriya in 700 oo weerar ay ka geysatay Israa'iil iyadoo ay burburisay kaabiyaasha militariga ugu muhiimsan xarumaha ugu muhiimsanaa ay burburisay. marka heshiiskan waxaa loo arkaa inuu yahay mid runtii muhiim u ah Suuriya waxaan ogsoonahay in cabsi weyn laga qabay Israa'iilna in heshiis lala galana dan weyn ayaa laga leeyahay inkastoo ku kala aragti duwan yihiin markaanu fiirino aqoonyahanada iyo mufakiriinta iyo khubarada muslimiinta gaar ahaan Carbeed ay leeyihiin Axmed al-Sharac waxaa laga yaabaa inuu maro madaxda kale wadada ay mareen taa oo la jeedaan in uu isbedel weyn markaa uu ku yimaado. laakiin waxaa xusid mudan in Axmed al-Sharac uu yahay qofka runtii bedeli doono guud ahaanba wadamada Carbeed. hogaamiye caqli badan waaye haddii arrintan ay dhacdana waxaa xusid mudan caqabada ugu weyn ee Suuriya inay ka talaabsatay oo weliba Falastiin asaga lagu sugay in xal markaa waara laga helo. sidoo kalena Masarna ay u badan tahay in runtii uu xal ka gaaro maxaa yeelay markaan usoo laabano qodobkan waa muhiim. buuraha Golan markaanu fiirino waa meel runtii dalxiis loo tagi karo oo meel aad u qurux badan sida ay dowladda sheegtayna haddii ciidanka Israa'iil ay ka baxaan way ka bixi doonaan sida heshiiska ku cad halkaasi in laga dhigi doona meel loo dalxiis tago oo aad u qurxin doonaan ciidamada Israa'iilna inay kala bixi doonto sida ayaa loo heshiiska markaa ku cadiyay haddii aan wax kala soo bixin. tan marka waxaa wax weyn markaas dhigi karnaa ugu jira Suuriya ayaa ku faa'iideysa. waa tahay dhanka Ukraine aan aadno dagaalada sii daba dheeraanaya ee Ukraine iyo xaaladda Ukraine oo mar walba markii dambe sii daraysa sida warbaahinta caalamka ay hadda warinayso Ruushka oo soo riday diyaaradaha Mareykanka
F-16 oo la arkayay baraha bulshada. Maxaa ka dhigan tahay dagaalada Ukraine iyo xiisadda Ukraine oo sii kordhaysa? Ukraine dagaalkeedii waa uu sii daba dheeraaday. Ruushka ayaa isku dayay inay bilooyin ay kusoo gabagabayso Ukraine ay ku qabsato, ha yeeshee laakiin taa waa ku hingowday. Dagaal dheer ahna gobolka uu galay. Waxaan ogsoonahay Zelensky madaxweynaha Volodymyr Zelensky madaxweynaha Ukraine in uu dadaal dheer ku bixiyay sidii uu guuleysan lahaa Ruushka. Inkastoo muddooyinka ugu dambeeyay weeraro ka geystay gudaha Ruushka guulo waaweyn ka soo hoyeen. Ruushka dhankiisana ma yareysanayo oo dadaal dheer ayuu ku bixinayaa sidii gobolkaasi u milkin lahaa. Marka labada dhinacba ma yareysanayaan. Sidaas ay tahayna reer galbeedka oo idil waa isku dayeen, way ku guuldareysteen. Xitaa awoodoodii oo idil ay isugu geeyeen way ku guuldareysteen. Oo waxaan arkaynay warbaahinada waaweyn marka Ukraine dagaalku ku bilowday, waxaad moodaaba reer galbeedka in wax weyn uu gaaray. Runtii guriyaasha tirada kooban iyo dadka oo tirada kooban ay dhintay waxaa laga dhigay in caalamka oo idil wax weyn soo gaaray. Marka waxay kaga dhigneed caalamka oo idil Ukraine in dagaal uu ka dhaco, in runtii reer galbeedka la xanuunsiyo, xanuun uu gaaro. Runtii dagaalkaasina wuxuu ahaa dagaal runtii mucjiso weyn uu watay. Reer galbeedka wax weyn ay ku arkeen. Ilaa iminka Ruushka kama guuleysan. Dagaalka waa uu socdaa. Midana marka mar walba way soo laabanaysaa. Dagaalkana waxaa runtii u muuqda mid uu sii jiri doono maadaama lagu guuldareystay in Mareykanka iyo Yurub ay xal waara ay dhex dhigaan. Inkastoo Recep Tayyip Erdogan iyo Sacuudi Carabiya isku dayeysay waayadii dambe inay xaliyaan, ha yeeshee laakiin dagaal kale gobolka ayaa soo dhex galay oo Iiraan midda ayaa lagu mashquulay iyo dagaalka Gaza. Marka sidaa ayaa keentay in dagaalku uu sii socdo. Dhanka iyo Pakistan aadina waxaa jirta in Pakistan saacadihii lasoo dhaafay duufaano iyo daadad zaid ah ay ka dhaceen oo ay dad ku dhinteen. Sida warbaahinta Iiraan ay qorayso 19 qof ayaa ku waxyeeloobay, 12 qof ay hal qoys yihiin. Maxaa la isdhihi karaa duufaanahaas iyo dabeelahaasi daadka wato ka dhacay qaybo ka mid ah Pakistan? Pakistan waxaan ogsoonahay wadamada ugu awooda badan ee muslimiinta inuu yahay. Kheyraadkiisna aan la soo koobi karin. Laakiin haddii aan soo koobno, horta xukuumadda ayaa mar walba sabab u ah in wadanka uu sii daciifo. Arrintaana way soo laabatay in badanna. Marka Pakistan wuxuu u nugul yahay dhanka daadadka iyo duufaanada u nugul yahay. Taana waxaa loo sababeyn karaa xukuumadda. Waxaan ogsoonahay Imran Khan wadanka horumar ayuu gaarsiinaya, ha yeeshee laakiin midda ayaa loo diiday. Iminka talada xukuumadda talada haysa oo Mareykanka iyo reer galbeedka ka amar qaataan ayaa wadanka mar walba dib u dhigaya dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha ee wadanka haddii la dhisi lahaaba. Laakiin dhanka ciidanka weli waa uu dhisan yahay. Laakiin dhanka ka markaan fiirino weli burbur ayaa ka muuqda wadanka. Taana waxa uu istaagi karaa mar walba xukuumadda ay u istaagi karaa. Imran Khanna lagu ogsoonaa in wadanka uu horumarin lahaa iyo kalsooni badanna marka ay ku qabeen shacabka. Xabsi ayaa lagu hubsaday. Sidaa ayaa mar walba la dala dhacaysa dhibaatooyinkan. Ugu yaraan 30 qofoodna waan maqlaynay in duufaanadaasi ay saameeyeen, ay ku geeriyoodeen. 19 dalxiisayaal la sheegayay oo labada dhinacba ay u badnaayeen qoysas 12 qofood oo hal qoys wada ahaa. Marka waa dhibaato maadaama wadan muslimiin uu yahay. Laakiin waxaa sabab u ah xukuumadooda sabab ah mar walba. Wadanka waa wadan weyn ah. Waa tahay isla Pakistan ayaa weli ku guda jirnaa. Dowladda Pakistan ayaa waxay ku eedeysay dowladda Hindiya taageerida kooxaha Taliban ee Pakistan shalay dhibaatada ka geystay qaybo ka mid ah iyagoo beegsadeen kolonyo ciidamada Pakistan ah. 16 askari ayaa ilaa 29 kalena dhaawacyo soo gaareen, 16 way ku dhimatay. Maxaa la isdhihi karaa fariintan hanjabaadda ee Pakistan u diraysa Hindiya? Ma la isdhihi karaa mar labaad mar kale waa ishujuumi doonaan Pakistan iyo Hindiya? Kooxaha mucaaradka ka dhisan Pakistan runtii qaar ay doonayaan xukuumadda inay ka farmaruujiyaan xukunka. Qaar runtii qalalaasay in wadanka ku soo jira ay doonayaan iyagoo xiriir la leh Hindiya. Runtii Hindiyana waa sida aan sheegnay dagaal qabow ayay ku jirtaa maadaama dagaalka tooska loogu guuleystay. Pakistan mar walba way ku eedeynaysaa. Hindiyana way awoodi doontaa mar walba inay gudaha carqaladeyso maadaama ay ku guuldareysatay dhanka dagaalka tooska ah in ay kaga adkaato. Hindiyana waa sii wadi doontaa arrintaasi. Mar walbana Pakistan way cambaareyn doontaa. Waxaana u malayn doonaa in dhanka xukuumadda laga ridi doono maadaama
caqabado badan hareeyay Pakistan. waa tahay daawadayaal waxaan intaasi kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii falanqeynta oo aan idinku soo gudbinay xogihii ugu dambeeyey ee caalamka tan iyo intaa barnaamij midka lamid ah ku kulmi doono sida iyo amaanaha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.